بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكسو دوادا برنامج قاره oo kaga hadli doono doorashooyinka Soomaaliya ka socda iyadoo markaan ay soo dhamaadeen doorashadii labada aqal ee dowladda Soomaaliya baarlamaanka iyo waliba aqalkii sare iyadoo dadka Soomaaliyeedna si weyn uga dhursugayaan doorashada madaxweynaha oo fooday nagu soo haysa. haddaba waxaa stuudiyaha nagu soo booqday Liibaan Axmed Cabdulle oo ah nin siyaasi ah isla markaana isu sharaxay xilka madaxtinimada Soomaaliyeed kana talasunay haatan isla markaana ah gudoomiyaha xisbiga lagu magacaabo Somali Congress People Party ama afka Soomaaliga lagu yiraahdo xisbiga golaha shacabka Soomaaliyeed. marka hore ku soo dhawaad Liibaan telefishinka waa Bari TV waa dhawaa bal inta aan u golin xaaladda Soomaaliya iyo doorashooyinku siday u socdaan dhawaantan laftigaaga waxaad ka mid noqotay raggii musharaxiinta ee siyaasadda Soomaaliya u tafaxaytay ee doonayeen inay xilka madaxtinimada Soomaaliyeed ay markaasi aadaan oo ay ku guuleystaan. waxaad lahayd xisbi aan hadda ka dhawaajiyay oo afka qalaad lagu yiraahdo Somali Congress People Party afka Soomaaligana ku noqonaya xisbiga golaha shacabka Soomaaliyeed. inta musharaxnimadaadii iyo sababta isku cashishay aanan ka hadlin maxay tahay xisbigan sababta loo sameeyay waxa aad ku sameyseen? bismillaahir rahmaanir rahiim. aad iyo aad u mahadsantahay Saadiq iyo dhammaan shaqaalaha. waxaan salaamayaa waa Bari TV telefishinka Soomaaliyeed oo ah telefishin xor ah. marka labaad waxaan rabaa magaca xoogaa inaan ka saxo waa Axmed Cabdulle Liibaan. markaan usoo dhaadhaco su-aashaada Somalian Congress People Party waa xisbi cusub oo dhawaan kusoo biiray axsaabta Soomaaliyeed. waxaan u sameynay in insha Allah ilaahay hadduu yiraahdo aan Soomaaliya siyaasadda qaldan oo ka jirto 4.5 loo yaqaano ama habka qabiilka ku dhisan sababtoo mujtamaca Soomaaliyeed xaqiiqatan dawlad markii la yiraahdo oo asalba mujtamaci ah mujtamac qabili ah oo aan fahmin xataa state wuxuu yahay dawlad waxay tahay oo badana xataa ragga siyaasiyiinta iyo dawladda Soomaaliyeed hadda aan dawladda ku magacaabeeno ay tahay adiga dawlad aan runtii dawladnimo dhameystiran wali aan gaarin. marka ina ummadii horta la fahamsiino aan u sameeyno political culture marka Axmed xaggee baad ka sameeysan xisbigan? xisbigan waxaan ka sameeynay asaaskiisa magaalada Muqdisho laakiin hadirtaan wuxuu ku faafsan yahay gobolada Soomaaliya oo dhan. maxilligii doorashada loo suxulduubayay baad sameyseen oo aad ugu tala gasheen inaad siyaasadda Soomaaliya kaga qayb gashaan mise waa wax mar hore idin qorshaysnaa aad doonayseen inaad dadka Soomaaliyeed xisbigan ku tustaan? magac weyn buuna xambaarsan yahay runtii. ma runtii doorashada ka hor aan sameynay shaqana kuma lahayn doorashada waxaana u sameynay asalba axsaab sanadkan doorasho ma geleynin. marka taas ayaa cadeyn buuxda oo inaan ugu talagelin inaan doorasho ku galo. yaad ka qayb galiseen? waxaa ka qayb gelinay bulshada oo dhan Soomaaliyeed oo dhan ka soo qayb gashay oo haweena ku jirto culimada diinta ku jirto aqoon-yahana ku jiro qof walba Soomaaliyeed oo ku soo biiray inuu u furan yahay oo da'diisa 18 sano ay gaartay. marka maxaad ku doorateen magacan? marka magacan waxaa lagu doortay magac kulmin karo oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan iska dhex arki karto maadaama mujtamac qabali yahay oo dhinacna iyo waxyaabo dhinaca lagu tilmaami karin oo ah magac qiimo leh oo aragna oo xambaarsan qarannimada Soomaaliyeed. maxaad u qaadan weydeen magac Soomaaliyeed oo buuxin kara afka Soomaaliga idinkoo inta badan siyaasadda Soomaalida ku ablagareeya ama ku qiyaasa magac ajnabi adoo heli kara Soomaali oo afka Soomaaliga aad hodan u yahay? af Soomaali ahaan magaca ku dhisan yahay sababtoo waxaan dhahnay xisbiga golaha shacabka Soomaaliyeed. very good. arinta kale dhinaca kale haddaan ka eegno waa maxay rukumada ugu waaweyn ee xisbigeena ka duulayo? waa 4 rukun ayaa noogu muhiimsan. 4 rukun kow midnimo ummadda Soomaaliyeed inaan midayno. waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay shantaas xidigtaas shanta ayaan ka duulaynaa tan koowaad. midda labaad inaan ummadda fahamsiino waxa ay tahay dawlad. Soomaalidu ma fahamsano dawladnimada Soomaaliyeed ma taqaano oo waxay u aaminsan tahay dawladda meel wax lagu xambaarsado oo wax lagu dhaco oo ninkii meesha joogo sidii xil ninkii qabto inuu
nin walba taageero oo qabiilkaas ka tirsan iyadoo loo fiirin ninkan xataa inuu reerkaas ka dhashay keliya loo eegayo oo reer hebelaa wadanka xukumo la dhahay inaan reer hebelaa la xukumo la dhino xisbi hebelaa xukumo la yiraahdo oo systemkaas lagu wado nidaamka saddexaad in aan waxbarashada aan horumarino waa rukniga saddexaad ugu muhiimsan rukniga afraad oo hadda dadka qaarkood ay ku leeyihiin maxaa ugu dabamaraysa usoo hormari weysay waa amniga iyo caafimaadka inaan ku dadaalo health and security cadaaladda ka war cadaaladda intaa hadday dhacdo way soo hoosgelaysaa waxagaag aan jarjarta hoos usoo daadegno waxaad tagtay Soomaaliya waxaad tiri waxaan rabaa xilka madaxtinimada Soomaaliyeed wax dad badan oo Soomaaliyeed ba u tartamaya xilka waxaad tahay qurba joog xaaladda iyo waaqiciga ka jira dalkana lama socoto waxa dhabta ah inta badan waxa la yiraahdaa waxa daris la dadka gudaha ku jira ayaa og xaqiiqada dhabta inta badan waxa uu orda xilka Soomaaliyeed dadka qurba joogta maxaad kaga duwantahay kuwa siyaasiyiinta markaa xaqiiqatan runtii aniga wadanka waa ku dhex jira ilaa in muddo ah oo kama maqnayn wadankii sababta qurba joogna kelimadaas aniga waa kasoo horjeedaa oo waxaa aaminsanahay Soomaalida oo dhan ay qaxooti tahay marka nin walba nin qaxooti ah tahay inay tiraahdo ayaan ka jeclaan lahaa sababta waxba kama duwana ninka qaxootiga ku jira xilooyinka dhadhaab oo Kenya iyo kuwa Soomaaliya dariska la ah oo dhan wadamada dariska iyo Al-Jahiim oo cadan ah waxba kuma kala duwanin oo waxaan nahay dad wada qaxooti ah farqi nolosha inaan ku kala duwanahay waa laga yaabaa laakiin magaca hal xabaan ka wadanaa oo qaxooti aan nahay qurba joog waa kelimad ay keeneen dad doonaya qaxootigii Soomaaliya ka baxay inaysan dib ugu soo noqon sida ka warqabtina Falastiin ilaa hadda waxay ku doodaa dadkii wadanka laga raacday oo Yuhuuddu u diiday in dib loo soo celiyo si heshiis loo helo marka anaga yaaba wadankeeni dadkii wadanka u dhashay u diidayno waxyaabaha xisbigeena loo asaasay kamid tahay in qofka loo fiiriyo Soomaalinimo aan loo fiirin inuu qaxooti cararay Axmed aan ka dhaxgalo waxa loola jeedaa dadkii dibka la darisay ee Soomaaliya intii dhibaato ka dhacaysay joogay oo waaqiciga iyo sida wax loo xalin karo iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo faar ahaan dhibkiisa taabtay isagii oo awoodo inuu xaliyo qof ka yimid dibadda oo maskaxdiisii ka muuqdo wadamadii uu ku soo noolaa oo qaarkood doonaya xaaladda Soomaaliya ka jirta iyagoo faahfaahsan inay ku dabaqaan waxa dibadaha ku soo arkeen taasaa keentay isfahan la'aanta iyo magacaabida qurba joogga didinta arrimahaas waa kasoo horjeeda sababtoo ah ninka Soomaaliga ah oo asagoo da'diisa ay gaartay dhowr iyo 10 sano wadanka ka soo baxay sideedoo kale waa wax uga dhiman Soomaaliya aqoonteedii oo intaasna ku naqanaya wadankii aqoon igaaga dhiman ma leh mid kale adduunyadu waxay naqatay hal tuulo oo wax walba xamar ka dhaca ama ka dhaca Boosaaso ama galkacay ka dhaca isla daqiiqadii inta anagoo xamar joogo qarax ka dhacay ayaa xaaskayga London joogtay isoo sheegaysa marka waxaan ka wadaa ummadii waxaba kuwa dibadda jooga ayaa akhbaarta gudaha uga dheereeyay Axmed aan ku soo noqono su'aasheedii aad iga jawaabin siyaasiyiinta gudaha ku aragtay hadda waad iska cashay oo waxaad doonaysay baahida aad rabtay waad joojisay oo madaxtinimada Soomaaliya u tartamaysay laakiin waxaan rabaa inaan ogaado ka hor sababihii iyo intaan gaarin siyaasiyiintii Soomaaliyeed hadda sharaxay oo aan 1 iyo 2 iyo 3 aan la oran karin maxaad kaga duwaneed markii aad rabtay inaad sharaxdo waxaan kaga duwanahay aniga aaminsanahay shakhsiyan waxaan watay wacyi هوتر وحلا دي كلا واحد الشرح إنك وجود هذه روانك إلى هذا سوفار أنت أوجه أنت أوجه ها أو أنت ترتمز حلك أو ترتمز مد الله بعد قف ودنك إن مد أكون نغنى يعني كمدها إلى لقى لابد يكون لقى بلعب مد سدحاد أنا جو حاولتي وعي صومال لما حزبي أن كسو جدا وديس أو صوماليا كونغرس بيبل بارتي مد أفراد أنا الدولة تأجيري سو عالم كتر سن مجرين أو أنا العكس وقعتي أو أن كنتو معي صاحبة هذا حلك أترت معي قبل قلت إني كحرين وطن عالم كمدها مركا وحيابها صارن مكلا فيري وأركي أحمد شرحيدا iyo xilka maartay Soomaaliya loo tartamayo waxa iska noqotay sheeka baraley iyo qof kasta inuu awoodo arimahaas ma aaminsan tahay may ila ma aha
runtii dadka soo tartamo iska fududahay la iskaga dhawaaqan aad bay u adagtaa runtii sababtoo waa capacity badan loo baahan yahay qofka inuu leeyahay rag fara badan oo lacag haysto xataa aan sheega karin jiro rag kale lacag siiya oo xataa lacagta ku tartamayana ka bixiya marka ila ma ahan qof capacity-giisa buuxo waxa uu arkaa horta ragga tartamayo dhan walaale ee hadirtaan oo ku soo haray tartanka wixii iscasili doona ma ogi ilaa hadirtaan waxa uu meenaa jeele iyo aniga ma hada qof kale oo iscasili ma jirto so far laakiin ay qaar kale had iscasili doonaan walaal hagaag aan sababta u imaado maxay tahay sababta aad uga noqotay sababta uga noqday waxaan arkay hadirtaan xilliga Soomaaliya lagu jiro soo sheekada kaaga bilaababa dawlad inaan lagu tilmaamin karin systemka ka jiro haddii aan xil ka qabtana wax aan bedeli kara ee aad u yaryihiin sida ka warqabtay hadda Soomaaliya waxa laga sameeyay laba aqal waxyaabo badan aan baaray wadankii aan dhex fadhiyay meeshii ugu dabka badneed oo xamar ah ayaan dhex joogay marka waxa ii soo baxday xilliga hadda la joogo hogaanka Soomaaliya in asalba systemka lagu socdo dhan la bedelo iyadoo la bedelina waxba ay Soomaaliya ka socon karin aad ayaa u mahadsan tahay Axmed Liibaan Cabdalle aad kaga mahadcelinayaa waqtiga barnaamijka aad iga qabshay barnaamijkan intaas aan ku soo gabagabeynaa tan barnaamijka min la mid ah ku doono waa amsaaq